kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan bahda ku xiran janaalka Kulmiye Technology. Koorsadaan waa koorsadiisii plus magaco Maxamed Cabdikariin. Cashirkan waa cashirkii afraad. Waxaan doonayaa maanta inaan sii guda galo sii sharxo variable waxyaabo badan aan ka sii sharxo tutorialkii hore sidaad ogtihiin waxaan ku soo qaadanaa hal qaab oo la qori karo variable balse waxaa jira qaabab kale. Waxaan doonayaa inaan tusiyo qaab kale. Tutorialkii hore waxaan qabsanaynay variable-ka kadibna isla markii ayaan ku shubaynay value-ga aan u baahanahay sidaan ay ahayd aan soo xasuusiyo. Kadib waxaa sheegaysa magaca variable-ka, kadib waxaa dhigaysay isla markii waxaa ku shubaysay qiimo sida tusaale 10 oo kale. Balse marmarka qaar waxaa laga yaabaa isla markiiba inaadan u haynin qiimo aad ku shubto aad u baahan tahay variable-kan inaad ka isticmaasho dib. Si ay taas u dhacdo kaliya waxaa isbedelayo waxaad ka reebaysaa qiimahan aad ku shubaysid. Waxaa sheegaysaa kaliya data type-ka, kadib waxaa ku daraysaa magaca variable-ka, kadibna waxaad dhigaysaa semicolon. Markii aad semicolon dhahdo saa u jeedeen variable-kan waa qabsanay memory aad ugu jira balse wax qiimo kuma jiraan. Si aan tusaale u sii badiyo waxaan doonayaa maanta inaan wadaago aan qorsheynayo inaan calculator aan qorno si aan u sii fahanno variable. Variable-kan waa integer kaliya waxaa lagu shubi karaa tiro nadiif ah oo whole number ah. Tiradaas oo ah tiro sidaan oo kale 100 10 20 30 balse tiro noocan oo kale ma lagu shubi karo sida 24 oo kale 25 wixii jajab wanti wataan ma lagu shubi karo. Tiro nadiif ah arjayna fahanteen. bal aan sameyno calculator-kan yar aan qabsado variable kale b and o semicolon c and o asigana semicolon. Kadib qofkii isticmaalaha aan u soo bandhigno warbixin taasoo dhahayso fadlan geli tiro, kadib aan dhahno cin qofka tiro soo geli waa sharxa kan, kadib u soo bandhig haddana fadlan geli tiro kale, u soo bandhig haddana b geli, kadib waxaa dhahdaa c de waxay la mid tahay a plus waa sharxa hal mar a plus b, kadib soo bandhig wadarta tirooyinkaas waa, kadib siide, kadib aan sadar cusub kusii qabsi oo koodkeena noqdo. bal aan ku soo celsho waxaa qabsanaysaa waxaan qabsanay variable wax qiimaha kuma shubin. sidaan oo kale waa dhigi karna haddii aan rabno inaan qiimo ku shubno balse qiimaha waxaan ku sugaynaa qofka isticmaalaha computer-ka dib ayuu ku ogaa doonaa. kadib waxaan qabsanay variable a variable b oo doonayna inaan kusoo shubno laba tiro, kadibna c oo aan rabno inaan wadartooda aan ku xisaabino totalka. kadib qofka oo isticmaalaha computer-ka waxaa loo soo bandhigay fadlan geli tiro, wuxuu soo geli tiro kan kaliya wuxuu soo bandhigaa shaashada computer-ka wax soo bandhigaa c out. kadib kan aan isla imaano kan maanta aan ugu cusub c in allah oo stream insertion object waaye. kan waxa waaye stream extraction operator. kadib halaan waxa waaye qofka isticmaalaha computer-ka ka soo qaad xog kadib ku shub halaan waxa waaye ka soo qaad qofka computer-ka xog kadibna ku shub waa isla fahanay. okay kan waxa soo bandhigaa fadlan geli tiro kale, qofka wuxuu arkaa tiro kale. kadib intaan waxa waaye ka soo qaad qofka xog ka soo qaad isticmaalaha computer-ka xog ka soo qaada. kadib waxaa ku shubtaa b wuxuu ku shubaa b wixii lagu shubo. kadib markii aad rabto variable inaad wax ku shubto aad isticmaalayso waxaad isticmaashaa calaamadan equal-ta isticmaalaysaa. c waxay la mid tahay a tirada lagu shubay oo lagu daro calaamadaas plus oo lagu daro b. kadib waxaan soo bandhig wadarta tirooyinkaas waa c wixii lagu soo shubay. kadib sidoo cusub ku qabo koodkan aan baroweyno
waxaa ku dhufanaysaa buttonkaas oo la dhaho build and run. waxaan rajeynaynaa ujeediin waxaa ku dhufanaysaa buttonkaas oo la dhaho build and run. waa soo socoyaa koodkeena wax yar oo culeysaa ka jiro balse waa kana waa soo kacaya. muxuu dhahay marka ugu horeyso fadlan waa ka intuu marooyaa fadlan geli tiro balangelino 3 enter dheh fadlan geli tiro kale balangelino 2 3 ku dar waa meeqo waa 5. waxaan ka rajeynaynaa koodkeena soo bandhigi 5 wadarta tirooyinkaas waa 5 kadib wadarta tirooyinkaas waa 5 sidaa u jeediin. hal mar aan ku soo cesho si aad si fiican ugu fahantaan. marka ugu horeyso waa loo soo bandhigay shaashada uu fadlan geli tiro kadib kan waxaa waaye cin waa stream input object kan waxaa waaye stream extraction operator kadib wuxuu leeyahay kan waxaa waaye kasoo qaad qofka isticmaalaha computerka xog kasoo qaad wixii aad kasoo qaada dii whole number yinkan ku shub kadib hadana soo bandhig tiro kala geli kadib xog kasoo qaada dii whole number yin b ku shub kadib c waxay la mid tahay a wixii lagu soo shubay iyo oo lagu daray b wixii lagu soo shubay kadib waxaa soo bandhigtaa wadar tirooyinkaas waa wixii c lagu soo shubay oo ahayd 5 tusaale iyadoo saas la dhaho kala 5 balse koodka asiga ayaa turjumaya waxaas bedelayo. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. si aad ugu soo biirto janaalka Kulmiye Technology fadlan subscribe like and share.